heshiiskaas qodobadiisa waxa ku kamid ahaa in dawladda Turkiga ay noo tababarto saraakiil xigeen iyo dabley ka tirsan ciidanka xoog dalka Soomaaliyeed isla markaasna noo qalabayso oo qalabkii ay ku dagaalami lahaayeen la siiyo waxa kaloo kamid ahaa in la helo xarun dalka gudihiisa ku taala oo numberka alla anagu intaan rabno aan anagu ku tababarno haddaan rabno 10,000 haddaan rabno 100 200 whatever numberkii dalku baahida dalka uu qabo lagu tababari karo lagu tababaro waxa kaloo kamid ahaa in qaybta caafimaadka oo badankooda aan inta lagu sameyn karin loo ogolaado saraakiil in dibadda lagu soo tababaro ay noo ogolaadaan oo kulliyadaha Turkiga lagu tababaro qalabaynta oo noocyo badan leh hubkii gaadiidkii warisgaarsiintii intaasoo nooc nalagu baa kamid ahaa heshiiskaas dhismaheeda xerada waxaa la bilaabay 2015 waxayna dhamaatay 2017 mustaqbalkana ay noqon doonaan dadkaasi dadkii mustaqbalka ciidanka hogaamin lahaa sidaa ogsiin adduunka laba doctrine baa jira Eastern doctrine iyo Western doctrine NATO doctrine baa leeyahay Turkigu waa wadan ka tirsan NATO tababarkoodu waa tababar aad u sareeya oo aad iyo aad level sare u ah waxayna nasiyaan tababar aad iyo aad u sareeya oo NATO standard ah bay saraakiisha iyo askartii kullu lagu tababaraa waa heer international caalami ah runtiina waa wax mataqaanaa mustaqbalka dalkan oo ay doono dadka Soomaalidu naturally waxay qabaan wax Ilaahay uu siiyay oo ayagu ay ku dhasheen oo ah in ay hanan karaan wax kasta oo la baro sida ay u tahay in ay u hanan karaan horay u muujeen ciidanka xoog dalka Soomaaliyeed waad ogtihiin adduunka dhan bay caan ka yihiin askarteen iyo saraakiishan waa caynkaas muddadaas aniga aan joogay saraakiisha qaybihii ugu horeeyay baan la shaqeeyay saraakiil yar oo tababarku kala heer way oo heerka hoose ciidamada dhulka loo soo tababaray baan la shaqeeyay aad iyo aad baynu u heer sareeyeen aad iyo aad baynu u guteen and always waxay noqdeen dad mar kasta la xasuusto aqoon leh askariguna sarkaalka wuxuu aqbalaa oo amarkiisa qaata markuu dareemo aqoontiisa inuu askarigu sarkaalku inuu aqoon hogaamineed u leeyahay markaasuu aqbalaa ilaa hadda meelaha xukumaan aad iyo aad bay askartii saraakiilka raalli uga yihiin taasoo markhaati ka ah yani sarkaalkan inuu yahay sarkaal aqoon leh wax hogaamin kara